asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinbaa ku soo dhowaada somali media of minnesota. xerada nenookasi ee koonfurta minneabolis una dhow moolka miyaa la xiri doonaa maanta oo khamiis ah. camp nenookasi oo ah xero loogu talagalay dadka aan guryaha lahayn ee xaafadda philips ayaa la filayaa in ay cagaf mariyaan shaqaalaha magaalada minneabolis khamiista. inka badan 100 qof ayay hoy u tahay goobta ku taala koonfurta minneabolis. qabanqaabiyaasha xerada waxa ay dacwad u gudbiyeen maxkamad federaali ah toddobaadkan iyagoo ku guuldaraystay dacwadda ay garsooraha uga codsadeen inuu amar ku siiyo magaalada inay joojiso qorshaheeda. qabanqaabiyaasha xerada waxa ay qorsheynayaan in ay sameeyaan quraac wadareed subaxdii hore ee khamiista. dhowr hay-adood ayaa soo xaadiri doona quraacdaasi subaxii hore si ay gacan uga geystaan dib u dejinta dadka degan, ayay tiri Christine Crabtree oo muddo dheer ahayd hogaamiyaasha xerada. waxaa sidoo kale la qaban doonaa shir jaraa'id 10 subaxnimo. magaalada ayaa 2 jeer dib u dhigtay xiritaanka xerada bishii lasoo dhaafay. qabanqaabiyaasha xerada dadka degan iyo horwadeenada badan ayaa ku cadaadiyey magaalada inay joojiso xiritaanka kaamka iyadoon la keenin xal si wax looga qabto caqabadaha guryaha. mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in ay ka go-an tahay in ay xiraan xerada, sidoo kalena ay gacan ka geysanayaan dadaalada lagu doonayo in guryo loogu helo dadkii deganaa. warbixintani waxa ay idinka imanaysaa Somali Media of Minnesota, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Mursal Dhicis.